13 نوفمبر 2017 doorashadii Soomaaliland sidii ay u qabsoontay ma waxay u dhacday si sax ah sidii ay ku andacoonayaan xisbiga talada haya dadka qaarkood iyo kuwa kamid ah international observers mise waxay ahayd doorasho boob iyo ku shubasho u dhacday sida ay iyaguna qabaan dadka qaarkood iyo mucaaradka gaar ahaan xisbiga wadani qoob iyo 20 degmo doorasho ee dalka mid ayaanu cagta u soo dhignay dad badan oo imkaano halkan inuu deeynano aan ku sheegaynin baa waxa jiray dadka kaad bisideen way qaybinayeen kuyada dhexda ku qaybinay telefoon baa lagu qaybinay markaan inaan u ku kala soo weyno soo roobowday laakiin dadkii ayaan qabanay wajigii markaan isku yarna qofka ismalaha dabadeed markaan aan kaadkan ka keentay way naga taagsanayeen inaan sheego inaga dhaqaaqay kaadkan inaga qaadanay waxaan u ku wargalnay in dadku soo noqonayaan markay galaan iyagoo calaalaya dadkaas waxay ka cabanayeen in kaadhka gacanta ay ku haystaan magacoogina la qaaday oo la saxay dabadeed la soo celiyo lagu yiri waa la qaaday kaadkaaga waa qaadatay bax lagu yiri way dadkii leeyihiin aaway taasina waxa keentay wax adjustment garaysan oo laga sii shaqeeyay baa lagu celiyay aniga laftirkayga isku tay labada kaar kaas waxa yahay aqoos kaasna wati codka ka waxaan ka codeeyay shaqadiisna kala yiraahdo kaasna waxaan ka qaatay jirnay waxaan ku codeeyay Umar bin Khadaab ku codeeyay markii dhaarinayay aan ka baxnay degmada Laascaanood in ay ugu yiri qof walba waxaad natiishaa gudoomiyaha mushkil may noqon oo markaan si ka baxnay gawadhida fulay waxaan aragnay inay askartu soo doonto baawarkeeda waalidsnaa waana dareemi kartaa qof inta magaalada uu joogay oo ku kacamay laga qaaday degmada la geeyay waxyaabaha kale aan arkay waxaa kamid ahaa markaan soo galay degmada Sheekh habeenkii cod ku maanta doorasho soo dhacday in habeenkii aan arkay ardayda qaar kamid ah oo soo hoysay buuggii codbixinta oo aan laga jin hal waraaq soo bartiis ku yaala la saambeeyay oo saambada iyo calaamadii halka tig laga saaray kulmiyay waxa kale oo jirtay in anagana lagu qabsaday waraaqo oo markii tababarkan lagu yiri waa cod xumaaday markaan cod xumaaday soo qornayna lagu qabsaday in dibadda lacag lagu qaybinayay baa jirtay aanan baawar lahayn inaan saaro qofkii aan ku dhigi karay saarna wuxuu ahaa askarigii la socotay markaan askartii la socotay hadaysan amarkayga ku shaqeynayn waxay noqotay inaan iska aamuso oo wixii halka ka dhacay aan shan ka eego qofka bilaadanka marka dacwada aad gudbisay in laga qalo ay ku qorata hadii aan cidna ka qorin meel aad geesan aadan garanayn waxaad ku qasbantahay inaad iska aamuso sidii loo walaaqanayo aad walaaqo